السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نين سقال طبعا سنة جرواي مجلس وحالي هذا خالد عبد عمر وجيريودي ماشك أما سجود أيها حب الله رفتي وحال اللي هي نين كان واحد دلك أوجيست نوالا أو جيت كمراي أو قريك صادف في عسكري كدبنا نين كان ويل كان ير ما ضحك رفتي السجن إسلاميش اللي وتوكتي ليه عديمها تليجرامك آيات كأركرتها دعاء قوسة ورئيس balse arintan khatar waay khatartu waxay ku tahay daawada adiga ah sidoo kale waxa ka muuqata meeshan wax kale oo ay u baahan tahay in la baaro maskaxda bini aadanka waxaan ka degdegayn ayaa kiiskan lagu soo afjaray waana tan keentay qoyska wiilkan dhalay inay nala soo xiriiraan oo ay adiga ka codsadeen inaan ku soo gaarsiino in kiiskooda marin habaabin ay dareemayaan baarisna la geliyo laakiin kor adiga naftigaaga tijaabiya aqligaaga su'aalna ku weydiiyo ninkan yar ee la dilay waxaa la yiri nin waalan ayaa qori ka soo dafay askar kamida ilaalada liibaan madaxweyne kadibna ninka ku dhuftay macnaheedu wiil ku dhuftay ayagani ninkii qoriga soo dafay toogteen oo fiirsa marka ninkan qoriga soo dafay markuu askariga qori ka dafay askari in qori laga dafo adag tahay ma la xarbinin miya daf markuu siiyay ma ka leexday ma ka istaagay koow labo ciidankii kale ee ninkan waardiyaha la joogay maxay markiiba falcelin uga sameyn waayeen ka hor dilka intuusan dhicin oo fiirso sidee suuragal ku noqotay ciidan kolba waardiye saaran ama albaabka uu difaac uga dhisan yahay inuu qof soo dhaxgal kadibna qoriga ka soo qaato saddex afar ninka hadii uu waalan yahay ninka qoriga uu ka dafay intuu dhaafay muxuu ninkan ama wiilkan yar ee 19 sano jirka u dilay ma kala jecleysi qofka waalan go'aan kala jecleysi muu leeyahay oo ninka inta ka soo tagay afar waay haye su'aalahaas marka isku geeno macquul miya wiilkan 19 sano jirka ah in ninka waalan uu nafta dhaafiyay si kasta ha noqotee ninka waalan ee la sheegay inuu qoriga dafay iyo wiilkaba isku meel ayaa la dhigay meedkoodii ninka markuu ninka dilay asagana waa la dilaa leeyahay laakiin qoyska waxay leeyihiin waxan wax macquul ma aha arintan baaris u baahanta waana runta marka laga hadlayo fariintooda gudbi ha dheelsan waxay u baahan yihiin cadaalad kiiskan oo durbadiiba la soo xiray waa su'aalaha muhiimka ah ee taa in la weydiiyo ninka qoriga lahaa koow ninkan aqoon ma isku laheedeen waa in la weydiiyaa waa in la helaa ninkaas iyo ninkan siday suuragal ku noqotay in qoriga uu ka qaato kadibna uusan ula xarbinin telefoonadooda in la baaro waay dokumentiyadooda in la baaro waxa xiriir marle inay lahaayeen in la ogaado waay sababtaas la heli karaa laakiin hadda nasiib daro kiiskan waa la iska soo xiray waan la soo afjaray cadaalad daro ayay sheeganayaan hooyadiis oo waliba ah haweeney miskiina waxay sheegtay in wiilka hadda u soo baxay u soo hana qaaday nafti la dhaafiyay waxaana lagu magacaabaa hooyadiis Maryamo Warsame sida ay noo sheegeen ehelka Maryamo Warsame waxay leedahay cadaalad Ilaahay xaqiisa taala laakiin mar rabay leedahay inaan sidan ku qanaco oo wiilkayga nin waana ayaa dilay in liga dhaadhiciyo Somali Sudanese Specialist Hospital waa isbitaalka ugu fiican dalkeena waxa uu ku guuleystay markii afraad u xiriir ah abaalmarinta isbitaalka ugu fiican dalkeena waxa ka howlgala dhaqaatiirta ugu fiican ee dalkeena Soomaaliya joogta bukaankii tagaa wuu qancaya hadda aad minaad naftaada rabto hadii kalena xaan kuugu aalhe kadibna sida kiiski uu ku soo dhamaaday iyada oo dadkii qoriga laga qaatay ee mas'uuliyad darada sameeyay xitaa haday suuragal tahay ay wali joogan arintaas oo ay leedahay baaris sax u baahan tahay adiga aragtidaada maxaa is leedahay ninkan nin waala ma cunay macnaheedu dilay mise wax kale oo la qarinayo ayaa jira qaab kasta hadaba magaalada fal uga dhaca adiga iyo xeeladaada waay amara jooga caasimadan ku noolahay waa inaad taqaanaa habka loo xeelaleysto in kasta oo malakamoodka u fiirso hay dambaajin aniga in kasta oo malakamoodka iyo taada marka imaado aanan jirin xeeladeysi quraanka ku cad la yastaqirun saacado la yastaqdimun ma lagu soo daahinayo ma lagu soo hormarinayo ilaahay waa shay saacadaada sugay marka laakiin waxyaabaha qaar markuu dhaco in la fiiriyo la baari u baahantay. Assalaamu calaykum.